بسم الله الرحمن الرحيم وقلب خميسة بشي تمنات كوبية كمان كده لبقون يلا بيا لبعتن حنو شوقنا مقالة السحبير وقريبت لبعض إنه كوري سنة إني قرأت شامع قرأت شامع قرأت كجود أدو البهانتة أما هدي سكر الله دقو وبالله سول سناك عين يدوله waxaanu joognaa beerta garaadka marka hore garaadku soo dhow qaybta labaad ee barnaamijka bismillah waa mahadsan tahay maxamedow waa dhowahay alxamdulillahi rabbil caalamiin galabtan inoo suuro geliyey inaynu kulankan iyo waraysigan yeelano waayahay waxay inoo joogtay qaybtii hore maxamed garaad oo la walaalahaa afartii nin saddexdii nin ee kale Axmed iyo Cali iyo sidoo garaadtooyada ku helay garaad waxaan rabnaa in halka ka sii abaqaadno wadiintii u horeysay aan ka dhigo maxamed isagu misan inuu dhalay maxamed garaad oo Cabdullah bismillah وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على من لا نبي بعده وصلوات الله وسلامه عليه أما بعد xilliga uu ku soo beegmay waxaan filayaa garaad maxamed xilli adag inuu ahaa xilligii diinta islaamka iyo gaalamadowdii lala dagaalamayay ay waddanka isku haysteen maxaa yeelay carruurtiisii oo dhan maxamuud oo jaban baa ka soo haray qaar waa la dilay qaarna waa la qafaashay nimanka aad maqasheen reer walla la yiraahdo waldayna iyo dega halkaa ilaahay hadduu ku roon yahay ay jiraan oo 5 nin oo walaaladiisa yaa la qafaashay isagana dhaawacan uu kula baxay naanaystiisa lagu yaqaanay maxamuud jabana ah yaa soo gaaray ragga waa la yaqaanaayo ilaa hadda deegaamadii qaarna waa amxaaroobeen oo af Soomaaliga ma yaqaanaan qaarna waa Soomaali ilaa iyo jigjiga ilaa iyo waldayna yey daadsan yihiin waxaan ku yiri maalmo dhaweyd oo qoliyo odayaala aan kala kulmay imisaad tihiino ilaa milyan qof waan nahay bay yiraahdeen nimankaas waxa laga garanayaa Cali iyo Ibrahim iyo Xuseen iyo Axmed ninka kale magaciisi waa iga maqan yahay yana iiman sheegin waxay u egtahay ninkaas inuu san tarmino ama dhintay ama bahalkii laakiin se 5 nin ba xagga aaday yaa la oran jiray iska mana ay aadeen waxaan u malaynayaa in ay sida la sheegayo la qafaashay dagaalka uu ku jabayo maxamuud jabane yaa iyagana lagu qafaashay ee kollayba dhulbahantihii kale ee meesha deganaa iyo Soomaalidii iyo daaroodkii kalena dagaal ay ku jireen uu buu ahaayo dagaal diimeed u badan maxamuud jabane marka garaad maxamed garaad Cabdalle wax tarmay oo deegaankeena jooga maxamuud jabane ayaa jira waayahay maxamuud jabane ayaa ka tarmay nimankaas ilmo maxamed garaad sida uu garaadku inoo sheegay waxaan rabaa laba weydiimood inaan israaciyo garaad adiguna waxa weey warceentooda aad isu keen raacisid to koowaadi maxamuud jabane isagu imisan nin buu dhalay talabaadna ay noqoto waxaan waxa weey igu maqaala ah maxamuud barkad oo la ilma adeer ahaayeen maxamuud jabane maadaama ay walaalahaayeen maxamed iyo guule inuu qabsaday oo ku qabsaday saldanadii ama waxa weey garaadtooyadii maxamuud jabane ilmo maxamuud jabane sidaasna ay muddo ugu hayay ama ku haystay marka labada weydiimood sida ay ku dhacday arrinkaas inaad isu ka yarayso waxaan rabaa inaan ka hormariyo horta waxaanaynu sheegayno waa taariikh waxaanaynu ka warramaynaana waa dad walaala ah hadeer waa beelo waa barkad iyo baxra same iyo Axmed garaad iyo waa qabiilooyin degan gobollo fara badan laakiinse xilliga iyo dadka aynu ka warramaynaa waa walaalo ama ilmaadeer maxamed iyo guuleed iyo Axmed iyo Cali de walaalay ahaayeen
tarantoodii faracdoodiina ee walaalaa dhalay oo waa ilmaadeer bay ahaayeen laxmiya sidaan sheegayno markii de guuleed walaalkii waa lahaa anaa kaa weyno kanina waa lahaa dee baxdayada alhayd halkaa khilaaf waa ka yimid hase yeeshee dee waa lagu kala bogsaday ma aha ilmo maxamuud waxay isku qabteen ninka isqabteenna cali barkad maaha ma yahay maxamuud barkad maaha waa cali barkad cidda isqabatayna waa maxamuud jabane iyo cali barkad oo ilmaadeer ruma ah cali barkad wuxuu arkay in jaaniskii garaatooyadii uu u soo noqday mar haddii ilmo maxamedkii kalena qaarna ay dhinteen qaarna la qafaashay maxamuud jabane oo dee keligiisoo jaban oo curyaana marka ama halla kama ama yaala kollayba haddii jabane ay ku sii hadhay dee waana dhutinaya baynu ku naqaanaa dee maxaa baashi kaa xiga baashi aabbahaa tirsanayay maxaa kaa xiga waa ilmaadeen ruma labadooda aabbaa walaala ah uu kaga qalafsiiyey waa kaga qalafsiiyey oo wuu dilay oo garaatooyadii buu qaatay maxamuud jaban uu dilay oo in adeerkiisa oo ilaahay hadduu kuu roon yahay kadibna maxamuud jabana dad badan buu dhalay bah iyo bahaa la oran jiray dhowr iyo 10 bay ahaayeen 6 ka mid ah yaa hooyadood la tagtay oo waxay la aaday reerkoodii oo oday ina ugaasaa dhalay islaanta waxaa la oran jiray 6da wiil la tagtay 6dii waaweynaaya oo markaa kuraya ah cambara cilmi ugaas waa cilmi ugaas warfaa waxay la aaday dalkoodii awoogood bay u geysay awoogood xoolaha ma raacsane raggan waxoodii sida uga soo noqon lahaayeen ka shaqee buu yidhi ilaahay dukuro yahay tababar buu u furay oo wuu tijaabiyey oo ilaahay dukuro yahay dhinacyo badan buu ka eegay oo raggaas rag soo dhacsada garaatooyadoodii yuu ka dhigay 6 nin iyagoo ah bay u tageen 12 sano yay ku maqnaayeen dee 6 nin bay ku tageen 7 bay ku soo noqdeen iyagoo 7 ah oo samatar dadaas waxay ahaayeen waa faarax iyo samatar iyo awdoon iyo warfaa iyo cali iyo xirsi samatar isagoo lamaan oo wiil dee ragga la socda ah wixii kale way kaga yimaadeen reer hal kale iyo la soo noqday oo yimaadeen lama ogeyn soo noqodkooda lama ogeyn kullayba dee xog bay helayeen oo meesha la degan yahay iyo degmadu meeshay taalo iyo garaadkii adeerkooda ahaa meeshuu yaallo iyo intaba way ka warhayeen garaadkan ay ku socdaan ay garaatooyadii haystana dee waa adeerkood ruma waa adeerkood labaad oo aabahood in adeerkooda nimankaas way soo galeen waddanka gurigii garaadkay abbaareen adeerkood waa dileen taariikhda la yaab kale laga sheega waxa weeye way yiraahdeen godobtani waa godob dawa adeerkeen ninkaynu dilay gacanta ninkii lahaa isheegi karta ma jirto isheegi karta oo oran karta hebel baa hootada lahaa ama waranka lahaa ma jirto waxaan la yiraahdaa waa la qodqoday aad baa loo qodqoday rodayga cali barkade garaad cali barkade adeerkiina keebuu ku baxay kadibna adigu waxaa la yiraahdaa warfaaba ugu nolol dambeeyay warfaayo lagu wado awr yaa qolyo qodqodeen oo yiraahdeen awoow ilaahay ku runtii arrintii habeenka dhacday awal yaa gacanta lahaa markaasuu ku yiri rag wax siri waa rag wax siri marka dee way garna way u lahaayeen oo ninka ku baxay waa adeerkood aabahood dilay dee waxa weeye meel kama jirto marka garaatooyadii sidaas islaanta la tagtay garbay u lahaayeen garaatooyadana waxay ugu soo noqotay haday joogi lahaayeen arinta way aqbali lahaayeen oo waxa la oran lahaa aqbala tegitaanka iyo ninka ina ugaas awoogood ahaa garanayay darajada iyo xukunku wuxuu yahay arintaas ugu soo noqotay ilaahay amarkii ka soo koob qadartoo qorayd iyo wuxuu qoraa mooyaane ka soo koob islaantaasa cambara cilmi ugaasa yaa soo celisay yaa soo waxay
نحن أنت وقرأت سيف عم بنوقش شرح رياض ضمنها سنتهاي لحدي من وراها هاي وجود سوء عربي مركي أدورك ودلين يجونا توارق أو هو ولا قبل ما ينبغى قبلنا سيدا إن هذا كل قام لحدا من أو قبتي قرأت علي قرأت علي كل سيدو قبتي وحوار ما لقاهي وحي رحدان ووجود مركو رجع عربيني يوجري نول بوحبات كوا أحسنت يسقع صوك على خيابي حاجة أو قيب سن ونبى ميسو كجب جاي حي لجرنا يصود يقولي حي مركز ساس ميسان سيدا هالنقطة هبل حولها هيدين هي هبل الحوج يعيدن كهيدين هذا هبل ثلاثة أديفت هبل إلى يدو كورو يوكا بودة هذا هبل نوال بحوشي سو السوقي بي وجود السوقي بي يوجد جور عنيت وساس علي وحويلي ثلاثة أديفت وكا ما الله هي قرأت ماشي قرأت علي سجل وده ماي قرأت علي قرأت محمود قرأت محمد قرأت عبد الله صومه ماي